annaga laakiin maadaama aanan la kulmin waxaan maartay bedelkii nadarada gashanayna insha Allah in inooga sheekeeyo sifaadka nabiga siiradiisa akhlaaqdiisa dhammaan jaanibka nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka haddana insha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa sheekhana jaliilka Sheekh Cabdiqaadir Sunni insha Allah inuu asagana kelimooyin noo soo jeediyo falyatafadal mashkuura إن شاء الله هو ناس عنده تصيح علماء نوشجن مركا ونحتال الحمد لله وثناء الله وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة الأعزاء رسول كان محمد عليه الصلاة والسلام وحارد عليه بشن أن كجرنا الربيع الأول مقالة مكة المكرمة أيها الأولى عليه بدحاء مكة قبيل الفجر انتو سنفجر قد الانكهر يانا النبي عليه الصلاة والسلام إرهاسات رب ذنب على أركين مركي النبي عليه الصلاة والسلام خرج معه نور أضاء له شام قصور الشام القيصرية نور بالله صباح النبي عليه الصلاة والسلام السردي أين منك كسراء حجيا ويججبين ويبربرين إلهنا سبحانه وتعالى هبينك على قبل الله shayaadiintii samada kor jirto dhan waa laga reebay waa laga celiyay oo ma lahan awood inay fuulaan wuxuushtii mashaariqda iyo maqaarib oo dhan way isugu bashaareen nabi dhalashiisa calayhi salaatu wasalaam maxay kula tahay haddii bahaa'imtii nabi isku bashaareynayaan maxamed baa la leeyahay ashraful khalqillah qaatimu rusulillah hadday isugu bashaareynayaan isugu tahniyeynayaan annaga maxay tahniyadeena noqonaysaa marka nabiga عليه الصلاة والسلام ilaahay markuu 40 sano uu gaarsiiyay risaaladii baa loo dhiibay waxyaabihii marka aan ka baran karno intii risaalada uu waday waxa kamid ahay xilmuhu sallallahu alayhi wasallam sidee buu nabiga dulqaadkiisa marka nabiga ka sheekeynayna waxaan rabnaa inaan ka faa'iidno sifaadkiisii saan ugu dayano marka nabiga dulqaadkiisa sidaaha calayhi salaatu wasalaam xilmiga waxaa la yidhahdaa alsafxu waalcaf waa dhaafid iyo iska cafin tathabut iyo inaa'a sugnaan iyo kaadsiiyo xilmiga marka waxaa weeye rasmiga ah waxaa weeye qofkii hadduu ku dulmiyo inaad u dulqaadatid haddaad awoodid laakiin haddii aad tirahdid maanta waan u dul qaadanaya waa inoo biri markan ka awood badiyo dulqaad lama yidhaha taas marka alxilmi waa maxay alsafxu waalcafwu waltathabut walanaa nebiga marka kayfa kaana xilmuhu sala allahu calayhi wasalam maca asxaabih tusaaleyn waxaa noogu filan nebiga calayhi salaatu wasalaam kufaaru quraysh oo nebiga ku dhibay magaaladiisii maka almukarama ee ku hoojiyey ee ka cayriyey ee inuu magaaladii madiine aada ku qasbay dhibaateyn jiray markii nabigu ka awood batay calayhi salaatu wasalaam uu magaaladii maka ku yimid oo dhammaan la isku keenay dadkii maxay malaysan kareen haddii meel lagugu dhibay aada qabsatid oo awood ku muquunisid sida dowladuhu yeelaan waxaa la dhihi jiray halla dadka hala laayo wixii gaashaan qaadar hala dilo si aysan ugu soo bixin hadhow kuwa dambe adiga kula dagaalama laakiin nebigu saas ma yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idhabuu fa antum tulaqaa iska taga waa iska sii daayay dhammaan iyagoo markaas malaysan kara in laga gudi karo wixii ay hore u sameeyeen waa haakada xilmuhu sala allahu calayhi wasalam waxaa kamid ah dulqaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo safxigiisii iyo cafwigiisii maalin ayadoo safar lagu jiro وأصحاب رسول الله النبي إلا صلى الله عليه الصلاة والسلام بأصحابتي قلبا ميل بيعادي النبي مركا جيد بوهوس قالي وخرساني أصحابته وكسعنا ننقالها صور دونتي سيفتي بولا بحي النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ذي كليه مركاسو سيفتي الله بحي مركاسو من يمنعك مني محمد يا ما تلقى كاريبي سو كما دلي كرم لكن النبي عليه الصلاة والسلام الله إله بقى كمان عنيا سبحانه وتعالى فوقعت سيف على يدي أو عن يدي
seeftii baa waxay ka dhacday gacantiisii ninkii gaalka ahaa fa aqada rasuulu sala allahu calayhi wasalam seeftii nebiga ayaa qabsaday markaasuu nebigu wuxuu man yamnacuka minii yaa iga kaa reebaya maanta de waa gaal nebiga inuu dilo isku dayey seeftii buu la baxay seeftiin maanta gacantiisa nebiga ku jirtaa kariimu ibnu kariim baa tahay nin wanaagsan baa tahay nin wanaagsanna waa ku dhalay faanka noocaas uu la yimid nebigu waa iska sii dayay calayhi salaatu wasalaam waa gaal oo in la dilaahay lagu janno tegayo rabay inuu ku dilo wuxuu ka doorbiday in la iska sii daayo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi iska bax saas way nebiga wuu ka awood badiyey laakiin kama aarsan ee wuu iska fasaxay nebiga calayhi salaatu wasalaam haakada kaana xilmuhu sala allahu calayhi wasalam dulqaadkiisii iyo anaa'adiisii haddii hadda maanta nin uu soo galo masjidkan uu ku kaadiyo dhammaantan maxaan qaban lahay arkaka meesha waa qaylinaya soo maa nin caraabiyaa soo gala nabiga alayh salaatu wasalaam fii masjidihi fabaala markaasuu ku kaadiyey asxaabta ku wuxuu dachum war iska dhaafa kaadii buu dhammaystay kaadi markuu dhamaysto soo baxa ninka wuxuu salaatu wasalaam ilaa masjid wuxuu ahaa dhul wuxuu ahaa carro buu ahaa wuxuu carrada biyaha lagu shubo siday bay marka carrada iyo daahir ku noqotay haddii aan anaa'ada iyo xilmigii nebiga uusan ahaan lahayn waxaa ka dhalan lahaa dhowr sababood ninka in kaadida lagu joojiyo ilaa qofka hadduu kaadida bil haddii lagu joojiyo wuu xanuunsanaya laba waxaa ka dhalan lahayd inuu nintii asagoo kaadidii la socdo intuu la istaago inuu masaajidka dhanba najaaseeyo hadda hal meel basaa najaas noqotay waxaa ka dhalan lahayd inuu isla or islaamka lagu sheegi lahaa waa dadkan horarka ah oo dhibaatada badan leh wax la soo galaa ma leh laakiin nabigu muxuu tusiyey dulqaadkiisii markaasuu ninka caraabi wuxuu yidhi allaahuma arxamnii muxamadan walaa tarxam macnaa axadan hayra walaa tarxam macna ilaah u naxariiso aniga iyo maxamed u naxariiso qof annaga naga soo raa u naxariisan maxaa way ku qayliyaan haakada kaana xilmuhu sala allahu calayhi wasalam maxaa akhafu dararayn baa la qaadan nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa buu dhaqankiisa ahaa waxaa dhici jirta dadka caraabka ta u yimaadaan oy nebiga maradiisa ku ceejiyaan calayhi salaatu wasalaam ku soo jiidaan oo ay xataa jeexdo warna sii maalkii hooyada iyo aabbaha ma ahane waa zakawaadkii iyo maalka nebiga gacanta ku calayhi salaatu wasalaam nin xoog wax kaaga qaadanaya markaasuu nebiga siin jiray calayhi salaatu wasalaam haddana ma dhihi jirin war maxaad ii dishay oo waad dhaawacday waxaan kaa siinay lama arkay iga tag nebigu saas ma dhihin calayhi salaatu wasalaam bal wuu siin jiray calayhi salaatu wasalaam haakada kaana xilmuhu sala allahu calayhi wasalam ikhwata alacizaa marka waxaan inaan dabeecadda nabiga uga dayano inaan dulqaad badan samayno qofka bini aadamka waa lagu gafayaa asna wuu gafayaa haddii adiga markaad gafto aad jeceshaa in lagu dulqaato markii lagugu gafo waa inaad dulqaadataa dadka wixii adiga aad lagugu samayn lahaa waa inaad ku samaysaa ma gafa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala qalad baad gelaysaa waxaad jeceshaa in qaladkaaga lagu cafiyo famaala qof baad qalad ka gasho wuxuu yidhi niyow waa kaa gardarraa iska kay cafi waxaad tidhaahdaa waa iska kaa cafiyey culimmadeenay khayr allah siiyo waxyaabaha ka soo gaarna waxaa ka mid ah ducooyinkooday ku jirtay ilaahu intiina dulmisay iska cafi maxay inaad haysateed maxay macnaha kuu keenaysaa waxaa kaaga fiican inaad cafisid asna ilaahi subxaanahu wa tacaala cibaadaadkiisii iyo wanaaggiisii uu hore ka sii galo adigana cuqdadii kaa baxdo maxaa alxiqda walxasad qofka mu'minka qalbigiisa uma suubana waa inuu ka saaraa xasadka waa maxay waa qofki inaad tamanisid ilaahay qofkaan nicmada uu siiyey ilahay inuu ka zuuliyo laakiin xasadkii laa xasada ilaa fitnatayni kaas waxaa leedaha kamasho iyo waxaa weeye kanoo kale yaa kaa dhiga taasna waa laba un keliya qofkii ilaahay cilmi uu siiyey oo aad istiraad alla yaa cilmigaanoo kale ku siiya aad diinta saa u faafiside ama qof ilaahay maal siiyey oo maalka ku bixinaya xaqa allow maalkaana kale yaa ku siiya aad xaqa ku bixiside taas kama sha allah laakiin xasadka waa maxay waa atamani zawaali nicma inaad tamanisid in nicmada qofka ilaahay uu siiyey ilaahay uu ka zuuliyo hadduu rabo adigu ku siinba taasaa xasad la yidhahdaa marka ikhwata alacizaa xilmiga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dulqaadkiisa iyo naxariistiisa waxay ahayd wax aan la soo koobi karin oo muxuu ahaa culammadu ay aada uga hadleen waxaa loo soo qaataa dulqaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam siduu asxaabtiisa ku ahaa bacdu asxaabi rasuuli illaahi waxaa jira dad ku islaamay dabeecadihii nebiga ay ku arkeen keliya dabeecadii qaarka waxay ku arkeen sakhaawadiis markaas waxaan aragna qof aanan weligii faqri ka baqayn ilaa qof hadduu yidhi wax isii
oo wixii uu ka malaysan wax ka badan aad siisid war waxaan arkay waxaan la yaabnay nimayo yaa waxaan xagee ka yimaadeen war saa qaar waxay arkeen nabiga runtiisa calayhi salaatu wasalaam sidqigiisii ilaahay ku xirnaantiisii deeqsinimadiisii dabeecadiisii wanaagsanayd u jilcanaantiisii nabigu qof weyn iyo qof yar isugu mid bay u ahaayeen xagga ixtiraam uu ixtiraami jiray waxaa ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu asxaabtiisa u weydiin jiray markii la isku yimaado bacda salaatu subx oo kale wuxuu dhihi jiray yaa maanta ru'yo arkay xalay yaa ru'yo arkay oo noo qisoonaya markaas saxaabada qaar ka waxay saasaan aragnay yaa rasuulallah markaas nabigu u fasiri jiray tafaqudkii marka maalin wuxuu ku weydiiyey gabar wiil masaajidka xaaqi jiray ama gabar labadaba riwaayo way ku soo aroortay aawe kii masaajidka noo xaaqi jiray oo noo nadiifin jiray markaas yaa rasuulallah waa dhintay xalo dhintaan oo maxay igu sheegi weyseen janaasadiisa aawe markaas yaa rasuulallah xoogaa anaga degdegsano horan ka aas haligiyo qabrigii baa la geeyey uu soo ziyaartay nabiga calayhi salaatu wasalaam qabrigii wuxuuna yidhi qabuurtan maanta ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku nuuriyey liajli hada shakhs ama gabar ha ahaato ama wiil ha ahaado ciddii masaajidka nadiifin jirtay darteed baa ilahay qubuurtaana dhan ilaahay subxaanahu watacaala uu ku nuuriyey wuxuu weydiinayaa waaxid min asaxaaba oo dadka laga yaabo inay yaraystaan aawey qisatu julaybiib saxaabiga cajiibka ahaa julaybiib wuxuu ahaa baa la yidhi nin aan lacag haysan oon macnaha xoolo lahayn haddana wuxuu ahaa damiim oo qof qurxoon ma ahayn cidina kama dambayn keligii buu ahaa rasuulullah maxamed calayhi salaatu wasalaam baa gabar u doonay hadda qof aan waxba haysan oo dhaqaale lagu raacayn oo aan qurux lagu raacayn oo aan lagu raacayn dad tiro badan bal ka warrama oo gabar loo doonaya haddana gabadhii aabaheed buu nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi gabadhaadaan kaa doonaya odaygii gabadhii hooyadii nabiga maanta noo yidhi gabadhaana laga doonaya mar nabigu wuxuu soo doonay miya anagu diidi karnaa waan siinaynaa laakiin ma oga cidda loo doonaya qofka ay tahay rasuulullah maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan u doonayaa julaybiib saxaabigii julaybiib aha ayaan u doonaynaa odagii habartii xoogaa waxay damceen inay gadaal u noqdaan maxaa yeelay waxay tamaninayaan meesha ma joogaan gabadhii baa loo sheego gabar ahayd aad u cilmi muxuu ahaa taqiyad ah waxaa la julaybiib baa ku soo doonay nabigaan ku soo doonay hadda ninkaan moodayna ninku maahan waxaa weeye xoogaa waxuma haysaa seen yeelna waxay tihi nabiga soo doonis idiin soo doono darteed julaybiib waa inaan leysiiya anaa guursanay laga noqon maayo gabadhii baa lagu nikaahay isagoo ba guri gelin baa jihaad la aaday jihaadkiibuu wax ka raacay fastushhida waa shahiiday ha shahiido dhib ma leh laakiin markii la soo aroonayay nimankii shuhadada ahaa waa laga soo tegey maxaa julaybiib dad tirsan inta badan ma ahayn laakiin wuxuu u tirsanaa rasuulkeena maxamed calayhi salaatu wasalaam waa la jihaadaa layidhi rag badan baa dhintay waa soo aroorina shuhadadii rasuul asxaabtuu fiiriyey wayna julaybiib war julaybiib yaa arkay kuma jiro ha la soo raadiy isagoo marka oo shahiiday baa la soo qaaday saasuu marka nabigu ku aha calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa rasuulkeena maxamed calayhi salaatu wasalaam saasaa markana laga doonaya ikhwata alacizaa in walaaluhu isweydiiyaan waxaa laga yaabaa walaaltinimadu inay maanta ku xiran tahay qofkii shilimaad ku siiya waxaa laga yaabaa in walaaltinimadu ku xiran tahay cidda aad adiga dad ahaan u xigto keliya innama almu'minuuna ikhwa waxaa laga yaabaa qof maanta nooga baahana walaalkeenna oo xanuunsan oo gurigiisii jooga qof u imaan aansan jirin waxaa laga yaabaa inuu jiro qof walaalkeenna u baahan inuu isbitaal aado oo lacagtu ku aadla aan haysan xaggeen ka ogaanaynaa haddii aanan tafaqud ku samaynin oo aanan weydiin oo dhihin war hebel meeye kii kale aaw sidii nebiga aan ugu dayrina calayhi salaatu wasalaam marka dad isku xiran inaan noqono ikhwata alacizaa oo walaaltinimada islaamku ay nooga xoog badiso wax kastoo dhan ayaa loo baahaya iskaalmayno haddii qof nagu xadgudbo u dul qaadano haddii aan wax samayno hadda waxaa dhacaysa ikhwata alacizaa oo aan raba inaan hoosta ka xariiqo dadka boqolkiiba 99.9 inay wax cafiyaan waxaa uga fudud inay aarsadaan qof baa maanta kelmad ku dhahaya waxbaa ku dhacaya markaasaa leeyahay hebel
maalintii bisaa'ir wax ku dhac ma aragtay war ilaahay qadartiisa way subhanahu wa ta'ala hatta haday ku dhacina adiga sheegtay ma baahanba maxay waxaad isku shaqiraysaa inaad qofkaas cadaawo u qabtay saasna ma fiicna ikhwatul aizaa as-saf wal anaa wal hil ayana laga rabaa hadii qof nagu gardarsado inaan iskaga dul qaadano inaan dhahan ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku hanuuniyo khayr Allah ku siiyo rasuulkeena maxamed baa dharka lagu jeexayay markaasuu sabriyay alayhi salaatu wasalaam markaasuu dhahay dib ma leh hor ugu soco ilaahay subhanahu wa ta'ala ku soo hanuuniyo ma idin la tahay ikhwatul aizaa in nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam qamiiskiisa in lagu aasay abdullah ibn ubay ra'sul munaafiqiin ninkii munaafiqiinta ugu weynaa waxaa lagu aasay qamiiskii nabiga alayhi salaatu wasalaam maxaa lagu aasay waa ninkii dhama munaafiqa liyukhrijana al-azz minha al-adal waa ninkii magaalada madiina ku yiri oo nabiga u goodinay iska dhigay inuu yahay acaz sam min kalbaka ya'kulk waa ninkii yiri markay asxaabtu tagaan magaalada madiina dadka wayna qabsadeen buu yiri waa sam min kalbaka ya'kulk eygaaga cayil ha ku cunee dadkii xagga nooga muslimiinta buu caynaya waa ninkii isku dayay inuu fashiliyo bacd al-qazawaat oo beenta sheego yiri dadkii waa jabay hala noqdo ninkii saasa waxa lagu aasay qamiiskii nabiga alayhi salaatu wasalaam wiilkiisii abdullah ibn abdullah oo saxaabiga weyn ahaa baa nabiga ka cusub alayhi salaatu wasalaam wuxuu yaa rasuulallah aabahay qufraan u dalab qamiiskaagana si aan ku aasay war waxaas munaafiqa intuuna dhibi jiraa baan ugu filaada war naarta Allah galiyo yiri ma qamiiskiisu wuxuu hayay orod hal ugu soo aas wiilkiiba la ixtiraamaya saxaabiga fiin ikhwatul aizaa qalbigiisa la ilaalinaya naxariis bi ilaahay u weydiinaya hadii ilaahay u cadaabo qofkan maxad ka faa'iideysa hadii ilaahay qofkan u halaago maxad ka faa'iideysa waxa faa'iido tahay ilaahay qofkan hanuuniyo anna ku hanuuniyo dhamaana wada hadda shariik wuxuu yiri wixii halaysan Allah soo hanuuniyo oo maxaa kale oo dheelaa waa sida saxda saas hadda qof qaldan arta Allah ku soo hanuuniyo hadda anaga waxa lagu sameeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam miyaana lagu sameeyo nabiga markuu meesha samaray waa la fiirsan jiray dad baaba dhagaxaan la taagan iyo qodxo iyo qashin waa lagu tuuraya waxa la dhici jirtay markii nabiga sallallahu jidku maray war waxa sheegaysa nagala tago orada masaajidda la'aad meesha suuqeennay waa bax meeqa aflagada loo geystay alayhi salaatu dulqaad buu inta uga gudbay asxaab rasuulaha waahid bacda waahid baa soo islaamayay ilaa muslimiinta ay xoogawaan oo awood yeeshaan ikhwatul aizaa marka saas kan laga rabaa inaan nabiga uga dayano dulqaadkiisii afwigiisii akhlaaqdiisii wanaagsaneed dhamaan muslimiinta aan u noqono rahiim ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu yahay rahiim laqad ja'akum rasuulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minin ra'ufur rahiim rafir ra'uf dimriib wa nabi sallallahu rahiim buha wala socotaan rahmadiisa iyo wanaagiisii heer waxay gaartay inay u soo dacwadaan bahaa'imtii rasuulka ilaahay ka waa ratiba u soo dacwooday ninka wuxuu ilaahay aniga waxana ay masiyo waana irarta maalin kasta وريا اسكله من لهذا الجبل وريا اسكله رتقن الناس روحوا انا يا رسول الله وكاسو دعوودي رتقن وادرانيس waxna siimays waa raxmad nabi calaysatu wasalaam fiir bahaimta usoo dacwoonays غزاله usoo dacwood jidci nabi calaysatu ku qudbayn jiray baa u ololay nabi calaysatu wasalaam markii uu mimbarka loo sameeyay haduusan raxiim ahaan lahayn miyuu olol lahaay kii dhaafi balaayahlihi wax badan ugu fadhiyay ilaahay iga wada kaas waa bay dhibay laakiin nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa raxiim alif dadka soo duma oo naxariista ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka qalbigiisa ay gasho oo ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka uu hamiyo inuu asaga la mid noqdo raxmadiisa waxay gaartay isagoo rabo salaada ku jira inuu salaada dheereeyo buu wuxuu maqli jiray ilmo yar oo ooynaya oo hooyadii ay ku jirto jamaacada hooyada soo naxariisay daraadeed buu salaada gaabin jiray nabi calaysatu wasalaam maxaa iga gala maanta waxaan rabaa inaan dhameeyo sajda ma dhihi iyadoo ay daradan sunna tahay maxaa iga gal maanta waxaan rabaa inaan baqarada dhameeyo labadan juz dhameeyo canuga ooynaya ma canuga haduu ooyo hooyadiis u naxariiso maxaa hooyadii canugu waxa weey ayada dhashay mana qaban karto salaadana waa ku jirtaa markay ikhwatul aizaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu dariiqi nabiga nagu toosiyo alayhi salaatu wasalaam naxariistiisii iyo xilmigiisii iyo dulqaadkiisa ilaahay inuu nasiyo haddii aad dulqaad yeelatid ikhwatul aizaa haddii aadan urgulad yeelan wax ku dhibaya ma leh xataa stresskan dadka hadda waalaya oo adduunka waalaya waxa ugu daran waa urguladka haddii dadkaan oo dhan ilaahay asxaabtiisa ku yihiin walaalihiis ku yihiin oo qofna aysan qalbiga xubaan kuugu jirin maxaba ku dhibayaba laakiin marka qofna aad isgalayso la oraa hebel ay yimid meesha fiiriday wuxuu soo dar baraka qabahan shaydaankan la
إخوة الأعزاء مركي الله سبحانه وتعالى وحن كرجينا إنه صفات النبي عليه الصلاة والسلام ونو أرزقه إن نبي قدوة ونقض لقد جاءكم نبي محمد ياهي قدوة حسنة أسوة حسنة نبي محمد ياهي داي شون أكثر وحكى سوينا أقول سمي وأنا أقول ينا حمان أقول سبعين بوا معصوم بوها سيفك استأنا أسكت دينا إن الله ما عنده حتى أنا أسكت دينا أنا أزبدل وهذا فمثلا وحلا يوقف إنه حناق بديه دلقان ده ولا قرب سيلي يلي أخوة الأعزاء داوم ليه داوم ليه داود وليه كو حداد حناق أفكار كهلن مصنوع ما الله سبحانه وتعالى كذا دي بدها إني بقول كي بس عشان يسجل أو كله عذر كاللي كرك يسكرت وحقوق على مقرن إنسان جوده يكجبتين سببت بحياتها هاي أو ذاك وحو أركي يا هبرتي أو قلل سبعينيسة ويلك وقلل سبعينية قبل يسوق قلل سبعينيسة وحو كحق بنكر المار حناقي سووا قرصنية ويسكو جبن مرك ضغط الدم بقى ضعيف مرك قفك دو حناق إخوة الأعزاء سوس أفكيس وإيمان حمانة أما قفك سووا جواب كأم مسكنة وصفات أقوى ناقصة هذا قفك كتكتي هذا كرك كوسو دغيا ميا وما بدنا هذا u jawaabin uma badna hadalka meeshaas ku dhamaanaya hadaa taagantahay fariiso hadii ay ka arada ka joogso weyseyso hadii ka joogso soo qubayso jawiga bedelo saas sameey ikhwata al-aizaa laakiin adoo xanaaq ku darin maxay waxa iimaanaysa in labadiinniba aanan kala roonaan waxaan la iska rabaa xilmi iyo ana dulqaad iyo safxiyana laga rabaa oo qofku wili marka safxiyana laga rabaa oo markii aan ka awood badan nahay لكن هذا الجوابنا هذا الكل أنا الجوابنا هذول ربحين كله فرنه محن فايد وأنا أرسلني مركز إخوة الأعزاء الله سبحانه وتعالى صفات النبي عليه الصلاة والسلام أول نقصن كوي قاطع وعمل فالله نقدره علماء فربنا بجوكتا سيرين وارمانتا أفرنتي دي أنت انقفي إله هو أنت انقفي نفع الشيطان بكاهاتي وهي أنا ونجيل الله سبحانه وتعالى يا أيها الفجير بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله